الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وبرنامج كيني أحكامتا بشهر رمضان ما دام ينقص فاضل هذا هاي ينقص دودة هاي bishii barakaysnayd ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka badan uu galiyay waxa laga maarmaana inaynu soo tilmaano ahkaamta bisha Ramadaan iyo soomka ahkaamtiisa mowduucana nimaan caawa biidnillaahi ta'ala wuxuu ku saabsanaan doonaa kayfiyada aynu ugu diyaar garoobayno amba qaabka aynu ugu diyaar garoobi lahayn bisha Ramadaan ee barakaysan ee inagu soo socota waxa laga maarmaana markuu shay khayri soo food yeesho in loo diyaar garoobo oo qofku uu isku dayo wadooyinka u fudaydinaya amalka inuu si fiican u guto inuu ku guuleysto haddaba shariicadeenu waxay tilmaantay wadooyin badan oo qofka muuminka ugu diyaar garoobi kara bisha Ramadaan lana rajaynayo haddii wadooyinka uu maro oo uu ilaaliyo qodobada qofku inuu ka faa'iideysto bisha Ramadaan ee barakaysan waxaan ognahay walaalayaal adduunyadana aynu joogno qofku markuu arko shay uu ka faa'iidayo oo ku soo socda uu diyaar garoobaa tusaale ahaan dadka beeraleydii marka raxmadda Ilaahay ay soo istaagto ee roobku uu soo dhawaado waxay sameeyaan dhulkooda ayay qotaan oo garowga ayay ku daadiyaan si raxmaddaas soo food yeelatay ay uga faa'iideystaan bisha Ramadaan waa raxmad soo food yeelatay oo adoonka muuminka loo baahan yahay feejiga dheeraada inuu u galo haddaba waxaynu isdul taagi doonaa 8 qodob oo aan rajaynayo qofka ka run sheega inuu sidii loogu talagalay bisha Ramadaan uga faa'iideysan doono qodobka koobaad ee adoonka qiimeynaya bisha Ramadaan loo baahan yahay inuu ku qaabilo waxa weeye adducaa بأن يبلغك الله شهر رمضان وأنت في صحة وعافية إنه قفك دعيسته وإلهي سبحانه وتعالى أبريه إن عافمات قب وكجارسية بشهر رمضان سيوجته عبادة بشهر حداد آهاتي الصوم كيا صلاة التراويح ديا تهجد كيا صلاة كلا فرل كهايا يذكر إلهي بقى سن شاده ugu guto markaasi oo Ilaahay ugu dhawaado isagoo macaansanaya cibaadadii sababtu waxa weeyaan haduu qofku xanuunsado shay kasto oo macaani uu la qaraaraanaya cibaadada sidoo uu gudanayna uma gudan karayo inaad markaa aad markasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonka muuminka uu ka barya ayaa laga maarmaana in Ilaahay bisha Ramadaan uu ku gaarsiiyo caafimaad qab taasina waxa weeye dhaqankii nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam waxa ku sugan xadiidka Imaam Ahmad uu soo saarayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam diyaar garowga Ramadaan wuxuu bilaabi jiray 2 bilood ka hor bisha Rajab marka ay bilato ayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam naftiisa u diyaar gareyn jiray Ramadaan iyo qaabilitaankeeda waxa rasuulka ka sugan nabigu inuu oran jiray Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadaan Ilaahay oo noo barakee bisha Rajab iyo bisha Sha'ban Ramadaanna nagaarsi marka barakada nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam Ilaahay uu ka baryaya waa caafimaad qabkii iyo wanaag qofku inuu ku gaaro bisha Ramadaan si adoonku uga faa'iideysto marka wadada koobaad waa maxay waa in adoonku Ilaahay uu ka baryo in Ilaahay Ramadaan caafimaad qab uu ku gaarsiiyo qodobka labaad ee loogu diyaar garoobayo Ramadaan waxa weeye الحمد والشكر على بلوغي maalinta bisha Ramadaan kow ay noqotay Ilaahay uu ku gaarsiiyo adoonku Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu mahad celiyo oo Ilaahay nicmada weyn ee uu siiyay uga mahad celiyo gaarsiinta uu gaarsiiyay bishii Ramadaan ee barakaysnayd hay'ale mahad celinta iyo shukriga nicmada laba shay baa laga faa'iideeyaa shayga koobaad in nicmada aad haysatay Ilaahay uu ku ilaaliyo ayuu noqonayaa shayga labaadna waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmada uu ku ziyaadiyo oo
waxaanad haysanin shukriga ilaahay uu kugu soo jiido marka maalinta Ramadaan aad gaadhid waa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ficil iyo qowlba aad uga mahad celisid nicmada uu kula kulmiyay iyo fursadda iyo jaaniska ilaahay uu ku siiyay qodobka markaasi saddexaad ee adoonka muuminkii Ramadaan ugu diyaar garoobaya waa al farah wal ibtihaaj inuu ku qaabilo Ramadaan faraxti iyo rayn iyo soo dhaweyn iyo markaasi raali ahaanshiyo bishii uu ka raali yahay iyo amalka saalixa gudashadiisa waa inuu qofku ku qaabilo nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam taa samayn jiray bal saxaabada ayuu nabigu u bishaarayn jiray marka Ramadaan kambalkooda ay soo degto ee ay soo dhawaato waxa rasuulka ka sugan xadiidkii imaam Ahmad uu soo saarayay nabigu inuu oran jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxa idin timi bishii Ramadaan ee barakaysnayd ayaa idin timi oo macna kambalkiina soo degtay ayaa nabigu oran jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wa bil barakaysan ilaahina subhanahu wa ta'ala oo idinku waajib yeelay soomkeeda ayaa rasuulku oran jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wa rasuulku ku dhiirin jiray saxaabada khayrka Ramadaan ku dhex sugan say uga faa'iideysan laayeen markaas nabigu wuxuu oran jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi albaabadii jannada ayaa la furaya oo kuwii naarta ayaa la xidhaya khayrkaas ayaa ilaahay u diyaar gareeyay marka qofku inuu si nashaada oo fircoon uu ku qaabilo Ramadaan ayay u baahan tahay qodobka walaalayaal afaraad ee qofku ugu diyaar garoobaya bisha Ramadaan waxa weeyaan al-azm wa at-takhdid al-musbiq lil-istifadati min Ramadaan waa in qofku la yimaado go'aan iyo waqtigiisa inuu habaysto habayntaas oo keenaysa inuu si fiican Ramadaan uga faa'iideysto waxaan ognahay xagga cibaadada iyo xagga aakhira marka la eego waqtigeenu waa iska balaqsi salaadiyo waqtigeedu uu gaaray baad arkaysaa qofkii oo laga sii baxayaba isagoo weysada ku cararayo balaqbalaqda haya Ramadaan inaanay saa kugu soo galin baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay adoonku in uu sameeyo diyaar garow amalkii adduunyada uu waxa weeyaan iska habeeyo oo isagoo amalkii adduunyada ku mashquulsan Ramadaan aanay ku bilaabmin waa inuu waqtigiisa marka habaysto oo Ramadaan waxay ka dhigan tahay waa tadriib iyo tababar sanawiya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo furayo oo aynu qofka muslimku uu ku xoojinayo iimaankiisii isla markaana uu ku adkaynayo alla ka cabsigii isla markaana uu ku baranayo sabirkii taacada lagu sabrayay kagana fogaanayo macsidii waa in marka qofku si nashiida uu ku qaabilo oo waqtigiisa uu kala habaystay oo waqti badan uu sameeyo cibaadada uu ka faa'iideysto lagama maarmaan weeye qofku inuu sida Ramadaan uu ku qaabila qodobka markaasi walaalayaal shanaad ee aynu ugu diyaar garoobayna bisha Ramadaan waxa weeyaan عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحات إن أينو قوان كو قادنو وليبا قوان دب أورون إن أينو كفائدي سنينو بشر رمضان بركيسان وقتها كغنا فائدي سنينو أعمال صالحة إن أينو لنمادنو وإنو قفكو تاسي قواميو أو سين نيودو أو كتلقل أو كسي سمايو محايا لي قفك إلهي قلبي سوقرن شاقة إلهينا سبحانه وتعالى وحاو دونيو أيا إلهي ورمين أيا وطاعدي إيو وددي خيرك أيا إلهي وفضيدنا أيا الله سبحانه وتعالى واكله فلو صدقوا الله لكان خير الله هدي إلهي ورن شيء إلهيين سيداس أيا وناك بدنان لحيد كان مركا ديار قروقا سميسيد إلهينا سبحانه وتعالى ولي بقلبي قاعد كقو آميسي إلهينا واكو فضيدنا أيا كان قضب كاسنا والا مارمان قضب كمركاسي لحاد رمضان أي نقول ديار قروبينا وحويان العلم والفقه بأحكام رمضان إنه أقون ويالنا أحكامتي يفقهي كحدنا عبادوين كرمضان تأي نقودنينو وقدون كمؤمن كوح واجب كوا إلهي إنه علم كعابده معناه أقون عبادة ولا يحي oo waxa weeyaan aqoonteeda uu garanayo waa inuu Ilaahay ugu dhawaado cibaadada noocaasa ama cibaado aanu qofku aqoon u lahayn de sidoo gudanba waxa lagu tilmaamaa qofka cibaado gudanaya haddana aqoonteeda aan lahayn qof markaasi doonaya tog rogmanaya inuu ka dhiso guri uu ka dhiso
dee markayna jaajuurka ayay waxa yara saa u dul saartaba biyahaasunbaa qaadanaya aqoon la'aan qof kale waan cibaadaysanaya saasuu ka dhigan yahay waa inuu qofku markaa uu sii barto axkaamtii soomka waxyaabihii soomka ka burinayey waxyaabihii soomka markaasi loo xidhayey arrimahaasoo dhan waa inuu sii barto si soomkiisu uu noqdo mid waxa weeyaan maqbuula oo xaggiisa shuruudiisii uu dhammaystiro saxiixa uu noqdo soomkiisu dariiqada markaasi walaalayaal amba qodobka toddobaad ee loo baahan yahay addoonka muuminkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ugu dhowaado bisha rabadaan kuna qaabilo أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب وإنه أدونكو بشر رمضان وكقابل قوان مع سيدي إيه الذنوب تي إنه يسكغتغو إلهنا سبحانه وتعالى والله أبطو وإساقو أسجدبا التوبت كياني وقلبكيسي سين نديفيي بشر رمضان وإنه يبلطو سببتو وحوية بشاني وشهر التوبة وبشي توبada iyo dambi dhaafka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bixinayay waxa markaa isweydiin leh qofka aan bisha aan ka faa'iideysanin ee aan toobad keenin sidee buu toobad keenaya sidee buu waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu noqonaya maadaama bishii loogu talagalay toobadaba adoonku aanu ka faa'iideysan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo tilmaamaya liibaanteenu inay ku jirto إلهي مر والبين كحدنا أو توبد عين لازمنا ربي وحول لي سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنين تي إلهي سبحانه وتعالى النقضة أو توبد كينا واللي باني سنة وقولي سنة سنة مركا توبد إيا رمضان دي إلهي خير بلارن ودياري يقفك وإسلح له قولوا وين بقى الدون كاسي وقاريا قضبك ولا ليال السديدات bisha rabadaan loo baahan yahay adoonka muuminkiin ugu diyaar garoobo waa in qofku uu furto bayt cad oo cusub oo kuwii hore oo dhan ka duwan baytka cadi uu ku qaabilaya waraaqda cadi uu furanaya ma'a Allah wa ma'a ar-rasuul wa ma'a waliday wal aqarib wa ma'a al-mujtama' baytka cad waxaad u furanaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaad u furanaysaa cibaadadiisii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala toobad waa inaad ku qaabishid oo aad ilaahay u toobad keentid si rabadaan ay kugu bilaabanto adigoo oo isa saafi gareeyay waxaad u furanaysaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo macnaheedu uu yahay wixii rasuulku uu ku faray inaad ku diranto wixii nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam uu inaga nahiyo uu inaga joojiyayna adoonka muuminkiin uu ka fogaado kadalika bishani waa bishii laysa saamaxayay waa bishii akhlaaqda waa in qofku si fiican uu la dhaqmo waalidkii isagoo raali galiyo waalidkii bishii rabadaan ay u soo gasho caruurtiisii qaraabadiisii dumarkiisii iyagoo ay iska wada raali yihiin oo quluubtiinu ay isu furan tahay waa in rabadaan ay noo bilaabanto kadalika mujtamacii qofku uu la noolaa iyagana waa inuu cafis ka dalbo oo isagoo mujtamacii uu la noolaa dhaqankii hore bedelay oo qof kasta walaaltinimada u furay bishii rabadaan waa inay bilaabanto markaas adoonku wuxuu noqonayaa adoon xaqi ilaahayna ku fiican xaqi kale bila aadamka ku dhaqankiisina ku fiican nabigeenu kaleeyhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay dadka waxa ugu wanaag badan kuwa dadka anfaca buu nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam marka adoonku markuu isku darsado ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu faray inuu fuliyo makhluuqi ilaahay uu abuurtayna uu nabadgeliyo labadii dhinacba marka waa kulmiyay adoonkii marka saalix ayuu noqonaya haddaba walaalayaal sidaynu ognahay bisha rabadaan dadka ay u soo galaysaa waxay noqdaan afar qaybood bay noqdaan oo ay u qaybsamayaan dadkaasi qaybi waa qayb guuleysatay saddex qaybood oo kalena waa qayb runtii waxa weeyaan ku guul daraysatay bisha rabadaan qaybta koobaad ee liibaantay bisha rabadaan ka faa'iideysatay waa dadka bishii rabadaan sugayay dabeetana ku qaabilay sabir ballaaran iyo xamilitaan cibaadadii ay xamilayaan isla markaana ilaahay ka bariyay ilaahay inuu gaarsiiyo iyagoo arinta u sameeynayo ay og yihiin inay tahay bishani bishii khayrka la laban laabayay ee raxmadda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejinayay ee barakaadka ilaahay uu furayay ka bacdi dabeetana waxay sameynayaan iyagoo taa og inay ku dadaalaan cibaadadii
oo ay ka faa'iideystaan dhammaan saacadaha iyo waqtiga Ramadaanta maraya inay ka faa'iideystaan amalkii bay ku qaabilayaan way ilaalinayaan macna dadaal bay sameynayaan qaybtaasi waa qaybta amaanan ee waxa weeyaan wanaag oo dhan heshay ayaa qaybtaasi ay noqonayaan qaybta markaasi labaad waa qayb Ramadaan ku qaabilaysa macaasi taacadkii bay ka tagayaan inuu aaba yeelaynin haddii ay soomaana soomul qaafiliin ayay soomayaano maalintii oo dhan way iska hurdayaan habeenkiina aflaam iyo wax la mida ayay markaa waqtigooda ay ku luminayaan qaybtaasina waa qayb runtii Ramadaan dayacday ayay noqonaysaa qaybta markaasi saddexaad waa qayb Ramadaan ugu faraxda waa bishii la ganacsanayay oo bisha Ramadaan ciida iyo ganacsigaas baa isagu uga dan leeyahay sidoo ganacsigiisa iyo adduunyada ugu mashquulsan yahay ay Ramadaan ku dhaafaysaa kuwaasina iyaguna halis bay ku sugan yihiin qaybta ugu dambaysa waa qayb aad moodo Ilaahay inay yaqaanaan Ramadaan oo kaliyaata oo markay bisha Ramadaan ay bilaabanto weysadii buu soo qaadanaya tahajjudkii buu galaya taraawiixdii cid ka badin mayso soomkii iyo wardigii buu la imanaya laakiin maalinta ay baxdo haddana halkiisii buu iskaga noqonaya kuwaasna culimadu waxay leeyihiin waxa aad looga cabsi qabaa inaanu Ilaahay Ramadaan baanu ka aqbalin haddaba walaalayaal bishii qiimaha lahayd baa inagu soo dhow waa inuu adoonku isku dayo inuu ka mid noqdo dadka saalixiinta iyo waqtigoodii u diyaar gareeyay bishii Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa in Ramadaanta khayrkeeda uu ina waafajiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh